السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواad asxaabta meel kastoo dunida ku joogtiin waxaynu gudaha u galeynaa xalqadeennii saddexaad. Ma og tahay in riyadaadii xitaa haddii ay fog tahay aad gaari kartid? Intaan xalqadeennii gudaha u galin marka hore muuqaalkaani like saar si dad fara badan u gaaro. Haddii aad nagu cusub tahayna subscribe noo saar, aad iyo aad ay dhiirigelin noogu tahay. Waxaa noo socda xalqooyinkeenii aad ku qiimaha badnaa. Waxaynu rabnaa inaynu halkan soo gelino 10 xalqo oo bedeli doona noloshaadii. barnaamijkaani wuxuu ka kooban yahay 10 xalqo. Waxaan ugu talagalay dadka walaalahaygay inay noloshoodii ku bedelaan si ay u gaaraan guul adduunyo guul aakhiro. Adigu waxaa tahay qof nasiib leh haddii aad soo daawatay xalqadii 1 iyo 2 haddana aad daawanaysid xalqadeennii saddexaad. Waxaynu gudaha u galeynaa muuqaalkeenii. Waxaan rabaa inaan maanta maskaxdaadii ku sabro adiga oo taagan meel god dheer ka sareeya oo dhinaca kalena aad ka arkaysa riyadaadii guusha, farxadda iyo nolol aad ku taamaysay. Laakiin adiga iyo riyadaadii waxaa idin dhaxeeya jid dheer, buuro dhaadheer iyo caqabado aad moodo inay yihiin darbi aan la dhaafi karin. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay sidee ayaad ku dhaafi lahayd caqabadahaas aad ku waaweyn? Ma jirto waqti aad ku fikirto, waa inaad hadda bilowdaa si aad u gaartid riyadaadii. Qof waliba wuxuu u baahan yahay inuu noqdo qof guuleysta, balse waxaa loo baahan yahay qofka inuu la kulmo caqabado aad u waaweyn si uu guuleysto. Haddaba waxaan rabaa inaan kuu soo gudbiyo sida aad ku gaari lahayd riyo fog oo u muuqata mid aan la gaari karin ilaa ay noqoto mid gacantaadii ku jirta. Qof waliba wuxuu leeyahay riyo. Dadka qaarkoodii waxay rabaan inay noqdaan ganacsato waaweyn, qaar kalena waxay rabaan inay noqdaan aqoon-yahano, kuwa kalena waxay rabaan qoryaal ama hogaamiyaal bulsho wax ku bedeli kara. Laakiin inta badan dadka riyada leh waxay ku ekaataa kaliya fikir, sababtoo ah waxay u muuqataa mid aad u fog oo aan la gaari karin. Waxayna ka cabsadaan inay la kulmaan caqabado aad u waaweyn. Waxaa muhiim ah inaad fahanto in fogaan kasta la gaari karo haddii aad bilowdo tallaabada ugu horeysa. Wax kasta waxay u baahan yihiin waqti iyo juhdi. Haddii aad joogtaysid oo aad go'aansatid inaad gaartid guul waliba, ugu dambeyntii waad gaari doontaa. Waxaan rabaa inaan kuu soo gudbiyo qiso dhiirigelin leh. Qisadani waxayna baraysaa inuu qof waliba uu gaari karo riyadiisii. Cabdiraxmaan waa wiil yar oo ku noolaa dalka Yemen. Wuxuuna ku noolaa guri aan lahayn koronto, sidoo kale gurigiisii ma uusan lahayn wax internet ah. Sidoo kale Cabdiraxmaan ma uusan haysan maktabad wanaagsan. Riyada uu lahaa waxay ahayd inuu noqdo injineer ka shaqeeya shirkadaha tiknoolajiyada waaweyn. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin aad u jecel inuu riyadiisii gaaro, balse markuu sheego asxaabtiisii aad ay ugu qosli jireen. Waxayna ku dhihi jireen ma jiro qof xaafadaani ku noolaa oo halkaasi gaaray. Waxayna u sheegeen inuu isdaalinayo. Waxayna ku yiraahdeen waxaa tahay qof waalan, sababtoo ah waxaad ka hadlaysid waa wax aan suurtagal ahayn. Aad ay ugu qosli jireen. Laakiin Cabdiraxmaan ma quusanin. Wuxuu bilaabay tallaabadii ugu horeysay. Maalmaha ka mid ah wuxuu aaday suuqa, wuxuuna soo iibsaday buugaag aad u fara badan, asaga oo lacagtaas ku helay inuu dadka tuulada u raro biyaha. Wuxuu ahaa wiil ku shaqaysta gaari gacan. Xaafadaha ayuu dadka biyaha u geyn jiray, halkaas ayuu lacag ka heli jiray. Habeenkii markuu gurigiisii yimaado wuxuu akhrisan jiray buugaagtiisii. Wuxuu ahaa nin aad ugu dadaalay akhrinta buugaagta. Wuxuu lahaa riyo aad u qurux badan. Mar walibana wuxuu ahaa qof ku dadaalay akhrinta buugaagta. Maalin waliba wuxuu ku celin jiray buugaagta akhrintoodii. Aad ayuu u dadaali jiray. Subaxdii intuusan aadin shaqadiisii wuxuu ku celin jiray buugaagta, wuxuuna akhrisan jiray Quraanka Kariimka. Mar walibana wuxuu u muuqday nin adag oo riyadiisii ka dhabeyn karo. 6 sano markay ka soo wareegatay, Cabdiraxmaan wuxuu noqday qof injineer ah. Xaafadii waa lagu wada bartay. Wuxuuna noqday qof xaafadda aad looga sharfo. Cabdiraxmaan dadkii xaafadda aad ay u qadarin jireen. Wuxuuna ahaa nin bulshadiisii wax badan ku soo kordhiyay. Ma ahan oo kaliya inuu noqday injineer, balse wuxuu ku shaqeeyay shirkado caalami ah, isaga oo safaro caalami ah ku tagay dalal aad u fara badan. Dadkii ku qoslaayay maanta waxay ka sheekeynayaan guush uu gaaray Cabdiraxmaan. Waxayna la yaabeen wiilkaani siduu ugu dhabeeyay riyadiisii. Mar waliba waxay ka sheekaysan jireen horumarka uu gaaray Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan sheekadiisii waxaa lagu daabacay wargeysyo aad u fara badan. Waxaana loo bixiyay wiilkii riyada fog ka dhigtay mid dhab ah. Wuxuuna noqday nin bulshada dhexdeedii aad looga ixtiraamo. Wuxuuna xaqiijiyay guushiisii. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa Cabdiraxmaan ka dhigay inuu gaaro guushaani aad u weyn? Ma ahayn inuu lahaa lacag aad u fara badan ama fursad gaar ah, ee waxay ahayd inuu go'aankiisii bilaabo xitaa haddii jidka u muuqdo mid dhammaad lahayn. Cabdiraxmaan wuxuu bilaabay inuu naftiisii horumariyo. Ugu dambeyntiina wuxuu gaaray guushaani aad u weyn.
haddaba maxay yihiin casharada aan ka baran karno qisadani Cabdiraxmaan? Riyada fog waa mid kaliya u muuqata mid aan la gaari karin markaad joogto bilowga. Talaabo kasta oo aad qaato waxay ka dhigaysaa inaad dhawaanayso caqabadaha iyo jidka dheer waa qayb ka mid ah guusha. Waxaa laga yaabaa inaad la kulantid caqabadooyin aad u fara badan laga hor istaago inaad gaartid guusha, ama aad la kulanto caqabado aad moodo inaadan ka gudbi karin, laakiin weli waa inaad sii wadaa. Ugu dambeyntii waxaad gaari doontaa guusha. Bilow hadda, ha sugin maalinta ugu habboon. Ma jiro waqti qurux badan oo riyadaadii lagu bilaabo. Waqti ugu fiican waa hadda. Fadhiga ka kac, noloshaadii horumari, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala tala saaro. Haddii aad maanta dareento in riyadaadii ay fog tahay, aan kuu sheego sir aad muhiim u ah. Ma ahan mid fog riyadaadii, waxaa kaliya lagaaga baahan yahay waa inaad bilowdo hadda. Ugu dambeyntii waxaad gaari doontaa riyadaadii. Markaad bilowdo tallaabo kasta oo yar waxay noqon doontaa mid kuu dhaweynaysa guusha. Ha ka baqin jid dheer. Wax waliba oo qurux badan waxay u baahan yihiin waqti. Qofku waxaa loo baahan yahay inuu aad u dadaalo, inuu naftiisii ku kalsoonaado, inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala tala saarto, inuu ogaado wax kasta inay u baahan yihiin waqti. Wax kasta oo qurux badan inay u baahan yihiin waqti. Baadiyaha ugu dheer wuxuu ku dhamaadaa meel qurux badan. Haddaba ha niyad jabin, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala tala saaro. Ugu dambeyntii waxaad gaari doontaa guul aad u qurux badan oo dadka ay la yaabi doonaan. Xasuusnaaw, dadka guulaha badan gaaray ma ahayn kuwii lahaa wadada ugu fudud, balse waxay ahaayeen kuwa riyada fog ka dhigtay mid gacanta ku jirta. Mar walibana waxay ahaayeen kuwa ku dadaala si ay u gaaraan riyadoodii. Safarkaagii maanta bilow. Fadhiga ka kac, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala tala saaro. Maalintii aad gaarto riyadaadii waxaad dib u xasuusan doontaa maalin sida maanta oo kale ah, maalinta aad go'aansatay inaad bilowdo safarkaadii. Haddaba qof kasta waxaa looga baahan yahay inuu riyadiisii ka dhabeeyo. Qof kasta waxaa looga baahan yahay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala tala saarto. Adduunkani dadka horumarka gaari aad u jeedid waa kuwa leh riyo cad. Mar walibana waxay yihiin kuwa aad ugu dadaala sidii u gaari lahaayeen guusha ay rabaan. Haddii aad maanta tahay qof dhalinyaro ah, waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku dadaashid horumarinta naftaadii. Waa inaad leedahay ujeed. Adduunkani qofka dhalinyarada waxaa looga baahan yahay inuu leeyahay hadaf cad. Haddii aad leedahay hadaf cad, waxaad gaari doontaa guul aad u weyn. Dhalinyaro fara badan maanta ma lahan wax hadaf ah, waxayna ka baqaan caqabadaha ay la kulmi doonaan. Adduunkani wax free ah ma jiro. Qof kasta waxaa laga rabaa inuu la kulmo caqabado aad u waaweyn si uu xaqiijiyo guulo aad u waaweyn. Wax kasta waxay ku xiran yihiin waqtiga iyo sida loogu dadaalo. Haddii aad go'aansato inaad gaartid horumar aad u weyn, waxaa laga rabaa inaad maanta bilowdid. Maalin waliba waa maalinta ugu quruxda badan. Ha sugin maalin qurux badan oo aad bilowdid horumarkaadii iyo sidii aad ku gaari lahayd guul aad u waaweyn. Dhalinyaro fara badan ayaa maanta waxay ka cabsadaan inay naftoodii horumariyaan. Waxay ka cabsadaan inay bilaabaan safarka noloshoodii. Haddaba su'aashu waxay tahay, yaa kuu maqan? Naftaadii adiga ayaa u maqan. Adiga ayaa laga rabaa inaad noqotid qof naftiisii horumariya. Adiga ayaa laga rabaa inaad noqotid qof Ilaahay subxaanahu wa ta'aala tala saarta. Ugu dambeyntii waxaad noqonaysaa qof guuleysta. Dhalinyaro fara badan waxaa laga yaabaa inay la yaaban yihiin horumarka ay gaareen dhalinyarada kale. Dhalinyarada kale waa kuwa leh go'aan iyo inay gaaraan horumar aad u weyn. Adagana waxa go'aan ma lihidi, balse go'aankaadi waxa waaye inaad seexatid, soo kacdid, wax untid, seexatid. balse kuwaas waa kuwa ku fikira horumarinta naftoodii. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayay tal saartaan, waa kuwa aad ugu dadaala sidii u horumarin lahaayeen naftoodii. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddii aad tala saaratid asbaabtii loo baahnaan aad la timaadid, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku gaarsiinayaa guul aan halkaan lagu soo goobi karin. walaalayaal, halqadahani waxaan ugu talagalay dhalinyarada walaalahaygii inaan ku dhiirigeliyo si ay u gaaraan horumar aad u weyn. taxanaheeni wuxuu ku koobnaan doonaa 10 halqadood. waxaan rajaynayaa 10kan halqadood markaad dhamaysatid, waxaan rajaynayaa inaad dareemi doontid isbedel aad u weyn iyo horumarka naftaadii. haddaba si aad ula socotid halqooyinka kale, halkaani subscribe saaro si mar waliba ku soo gaaraan. like saar muuqaalkaani si dad fara badan u gaaro. aad iyo aad u mahadsan tahay. wixii fikir ah waxaad noogu reebtaa qaybta commentiga. aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada halqadeeni. intaan ku kulmi doono halqadan halqada xigta, sidaas oo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh.